Waa kuma Naasir Ciga oo ah qofka xafiiska ra'iisul wasaaruhu maanta sheegay in uusan ka tirsanayn isla markaasna wax shaqo ah ka haynin. Sida aynu baaritaankeena ku ogaanay page-ka rasmiga ah, Naasir Ciga ayaa ku qoran inuu yahay la taliyaha khaaska ah ee ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka. Walow warqad maanta xafiiska ra'iisul wasaaraha kasoo baxday arrintaasi lagu beeniyay. Naasir ayaa maalmahan aaladda TikTok aad looga hadalhayay kadib markii uu muuqaallo la soo duubay gabdha caanka ah isaga oo sheegtay inuu yahay maalqabeen. Gabdhaha ayaa isku qabsaday ayagoo sheegay in Naasir uu yahay nin gabdhaha aad ugu roon isla markaasna gabadha lagu magacaabo Malaba oo qayb ka ahayd isqabqabsigan ay sheegtay in uu u gaday iPhone 17 oo ah moobilka ugu casrisan isla markaasna qiimihiisu uu marayo $1,800. Haddaba waxaa soo baxaya xogo la yaab leh oo ku saabsan hab-dhaqanka Naasir isagoo la sheegay inuu gabdhaha aad ugu dheelo isla markaasna uu dhaqanka ka hadlayo asagoo uga faa'iideysanaya duruufta. Sida uu sheegay weriyaha caanka ah ee ka faallooda dabagalka Daahir Cali Sow, ninkan ayaa sanadkii la soo dhaafay lagu helay in uu khudbad siraystay in ka badan 373 hablood. Waa inta hadda la shaaciyay. Naasir ayuu madaxweynaha Jamhuuriyaddu 2022 u magacaabay inuu noqdo la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha xiriirka caalamka iyo barnaamijyada, balse muddo kooban kadib madaxweynaha ayaa xilkaasi ka qaaday kadib markii lagu helay eedeymo la xiriira musuqmaasuq iyo wax is-daba-marin. Wixii markaasi ka dambeeyay ma caddayn xilka uu dowladda ka dhaxayo Naasir, walow uu qayb ka ahaa wafdiyo ka socday xafiiska ra'iisul wasaaraha oo gaadhay magaalada Laascaanood intii lagu guda jiray yagleelidii maamul goboleedka Waqooyi Bari State. Haddaba Naasir waxa uu kala mid yahay mas'uuliyiinta kale ee dowladda in uu ku tagrifalo oo uu ku tunto xuquuqda iyo awoodda dowladnimada, balse waxa uu dheeryahay in uu si public ah arrintaasi u caadeysto. Dowladdu maxay arrintan ka qaban doontaa? Tallaabo noocee ah ayay ka qaadi doontaa Naasir? Shacbiga Soomaaliyeed indhaha ayay ku hayaan.